السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا وإذا سلام سودنتهين إنما ولاشين إسراء فيديو كان إذين وذا مانتا إنت أنا أوجد قلين وحنج على استين إذين وذاكو كبر أبايا ذي وواتنا channel كمش إذين كغموقدو ومما إذا وأبايا سميسا عنتوين آد أفضود يوحياب بدن إن شاء الله إن أبايا وح بدن أياد كفا إيدي دونتين ولا لهي هدي أد جوكتو ودنكي هدي أد ميلك لجوكتو cuntooyin yaryar oo fudud oo macni qurux badan ayay samaysaa waxaan idinka codsanayaa walaalaha igu xiran maanta in ay abaayo soo booqdaan oo hadii ay noqoto subscribe iyo mataqaana videoyadeeda inaad usoo daawatiin baad u samaysiin insha Allah waan idinka rajeynaa inaad samayn doontiin yacni qofka walaalka markuu caawin u baahan yahay ayaa la caawiyaa marka abaayo hadday caawin u baahan tahay actually soo caawiya iska ogtiin YouTube shuruudo iyo balaayo ayuu leeyahay marka abaayo la soo bobsiyo insha Allah waa qofkaad arkaysiin waxyaabaha aad u badan oo faa'iidooyin leh aad ka heli kartiin meeshaas subscribe u soo saara anigu waa u jeedin adinkana u soo saara walaalahay maanta ani video-ga idin wada waxa waaye dukaamada alaabta ugu qurxoon magaalada ayaan soo aaday alaabta markaan dhahay waxaan ka wadaa alaabta moblerka sida fadhiga jiifka roogaga sariiraha waxyaabahaas oo dhan dukaanka armaajooyinka miisaska qadada dukaanka xalada Erikslund Mobler kulay Sweden badan way wada yaqaanaan Erikslund Mobler iyo dukaan kale ayaan maanta aadi doonaa markii ila soo daawado insha Allah alaabo ayaan ka rabaa markii aan alaabahaas soo dhameystiro ayaan idin la soo wadaagi doonaa duu Ilaahay idmo alaabo qaar ayaan guriga iska bedelayaa walaalahay markii aan soo bedelan waa idin la soo wadaagi doonaa fadhigan meesha yaala said uga hele saa u jeedeen fadhigan waxa ku sigtaybo ina maalinkan guriga soo qaato said uga helay laakiin the only thing uu ku xun yahay waxa waay aad u badan yahay waa saddex kale iyo mid hal mana kala gadayaan marka dibka jira ayaa kaas ahaa waayo ani fadhiga hadda u yaalo oo gariga ayaa aad u badan soo fadhi kale oo badan ma u maleynaa inta gadan doono marka aad u badnaa soo kan aad u qurux badan u jeedin soo ma ahan fadhigan yar oo gaabowga ka fadhigaas oo kalarkiisa beige yahay ayaan mataqaana aan hadii qaada leeyahay aan qaadan lahaa waayo fadhi yar oo aad u kooban ayuu ahaa waa idin tusin doonaa fadhigaas asaga oo beige waa idin tusin doonaa laakiin aad u ila qurux badnaa aniga kuwan eegan weeyaan dukaankan mar hore ayaa alaab gadi jiray waa dukaamada alaabaha ugu horeeyay Sweden soo ayaan dhexe ayuu alaab marax keenay kadibna يعني وكا يرادن macmiilka hadda ayuu dib isku soo cusboonaysiiyay alaabo qurux badan oo modern ah ayuu keenay markaad alaabiis ma sha Allah ayuu qurux badan laakiin ayaan dhahay mar aan imaaday yani ma qurux badna alaabiis mar walba iska imaadaa uu dhow yahay laakiin alaabiis sanad ka hor alaabaha maanta uu gadaayo qurux badan ma heenin soo hadda marka si fiican uu isku soo dhisay ma sha Allah bas fiican uu soo degay alaabo badan ayuu iska soo habeeyay marka dukaankan alaabta aan ka soo gato waa idin soo tusin doona hadda maanta ani waxa u tagay inaan soo fiirsado kaliya maalin kale ayaan u tagi doona inaan alaab ka soo gato laakiin maanta asaga iyo mid kale soo fiirsi kaliya u tagay marka waan fiirsanay aaday alaabtiis iyo qurxoonaadeen alaabo qurux badan oo waxay keen ma sha Allah aan ka helay saa u jeedin walaalahay fadhiyaasha oo navy blue qofka jecel fadhiyaal navy blue inda soo bixis ayuu haay dukaankan ma sha Allah marka fadhigana waa kana uu haayay oo greenka aad u qurux badan yahay gold yar ayaa ku dhex jiro fadhiyaal aad u qurxoon ayuu keenay dukaankan actually sidii hore aan ku ogaadin jiray ma aho alaabo qurux badan ayuu keenay maantay waan soo sheekeysanay inaan soo fiiriyo aan la soo sheekeystay kaliya oo maantay waayo weliga inta dukaan imaatid aragti goowaad waxa ku gadan wala iskaga soo laabtaa saa u jeedin wuxuu kala hayaa maraayadaha iyo waxyaabahan markii aan tagay ayaan isdhahay walaalahan uga sii faa'iiday abaayoon raadinay ayaa jiro maybe mar hore ugu dambeysay ama aan ogeyn alaabta inuu hayo alaabta uu haydan kuma wada jiraan internetkiisa intaas ayuu balaayo ku dhigay alaabtan oo meesha u buuxda dhan kulligood internetkiisa ma wada helaysid laakiin dukaanka alaabo badan ayuu ku hayaa marka waan ka soo helay alaabo yar oo qurux badan ka soo helay ayuu hayay maanta dukaanka isbedel badan uu sameeyay actually qofkii dadka mar hore ugu dambeysay walaas fiican isku bedelay dukaankan waayo hadda wuxuu iska bareejeynaa dukaaman kaleeto Sweden laga furay oo dukaamada alaabaha guriyaha gada soo marka dukaanka walaalahay dukaan badan oo iska bareejeynaya bustu iska qaado alaabo qurux badan fadhigan oo kale ayaan hore muu oolin maraa imaaday alaabayaal badan oo cusub oo keenay ma sha Allah oo qurux badan oo keenay waliba qiimihiisa macquul ay yihiin dukaamada kale marka la barbar dhigay oo asaga uu roonahay waayo dukaamo kale ayaan fiirfiiriyay waa hal dukaan la iska imaado Soomaaliya ka raadinaysa soo marka dukaamo kale aan waa fiiriyay asagana waa fiiriyay
asaga hadda ugu soo roonaa waxyaabihii aan rabay marka loo fiiriyo asaa ugu soo roonaay marka walaalaha qaaliga gabadhii u baahan alaabo iyo mataqaanaa waxyaabo cusub videogan oo kale way fiirsan kartaa si degan kadibna waxay ku arki kartaa waxyaabihii u baahneed maybe waa dukaanka maasha allah alaabo waxaa ku dhahee quruxda la yaabayuu keenay ayaan hore maku ogeyn alaabahan aada iyo aada alaabo u shidan uu keenay markaan sida ujeediin kalara oo shidanna wuu keenay oo light awal dukaanka muxuu hayn jiray cadaan iyo waxaa u badnaa madow cadaan iyo madow iyo kalarka gareega bisa ka buuxi jireen hadda laakiin maasha allah wuu iska soo kala kiciyey saa ujeediin fadhigan oo kale aada u qurux badan yahay waan ka helay ani waxaa ku yirahdaay fadhigan iyo fadhiyaal kaleeto oo qurux badan buu u keenay miiskan dhex yaalo nice fadhi oo silver miis silver qurux isku yihiin sheege kan oo kale hadeertaan waa kii aan idin tusinayay oo kaleeto kii aan idin tusinayay laftirkiisa waaye fadhigan oo gareega wuu hayaa gareegan oo soo yar baxsan xoogaha gareega daag saaidka ma ahan miisas qurux badanna wuu hayaa dukaanka maanta anigaaba ka helaybo beemi idin sheegaye dukaanka maanta anuu iga gadmaday soo walaalahay gabartii alaab u baahan oo kale iyo waxyaabahaas iska soo fiiriyo aan dhilaa dukaan weligeed intaad tagtiin hal mar waxa kasoo gadanina iska tag iska soo laabale iska tag soo fiir iska soo laabale iska tag soo fiir iska soo laabale mar walba saasaa la sameeyaa kadib waxa yacni haddaa ka gadanaysa haddii kale la go-aansadaa balaas dukaaman kale lala barbar dhigaa soo intay ku raqiisan meeshii oo qatar maxaa ku waxaysan ayaa mataqaanaa la dhahaa maanta waxaa idiin soo duubay dukaanka qeybtiisa oo fadhiga insha allah next time waxaa rajeynaa inaa idiin soo duubo qeybtiisa fadhiga qeybtiisa jiifka hadda fadhiga ayaa idiin soo duubay jiifka ayaan rajeynaa next time inaa idiin soo duubo waayo ma ka wada gaari waayo video ma isku khaskhasmaa ayaa isdhahay soo mar kale haddii ay noqoto inaan u laabto jiifkiisa inaa idiin soo duubo ayaan rajeynaa jiifaf cusub xataa wuu keenay soo halkana markaana fadhiga ayuu keenay fadhiga oo fadhiyaal cusub uu kusoo siyaadiyay ayaan ka helay hadda kalarkan oo kaleeto beejka aada u qurxoon laakiin beej oo light waaye oo almost cadaan u dhow soo too much wuxuu ahaa too much colored oo yacni cadaan xigu ahaa laakiin xoogaa beej oo waxaa jira beej caadi oo medium iyo beige oo mataqaanaa dark beige iyo light beige kan light beige ayuu ahaa aada usoo baxsan yahay laakiin ma foolxumin asaga xataa wuu qurux badan yahay had sarirta ani ii taalo kale beige waaye laakiin medium beige waaye oo beige ayaa wuxuu kale yahay mid aada usoo baxsano wow beige oo cadaan xigo iyo beige yaroo beige normal iyo beige oo xoogay dark waaye marka mar walba waxaa quruxda badan midka oo normal beige mujeedin bahalka quruxda badan oo bahalka dhexda la dhigto ama mataqaanaa kursida la ag dhigto kale hayaa kursida hadaa idin tusinayaa waa ka helaya mujeedin agtooda waa ka dhamaan lahaa beige oo aada u weight u waaye laakiin way qurux badan yihiin laakiin quruxdooda maxay kugu taalaa iyo kan tirada ka bateen dhibka kale oo dukaanka qabana maxaa waaye hal kursi makaa gadaayo haddii aad qaybtaas oo kale iga gad makaa gadaayo waaye set waayuu ku leeyahay way iswataan haddii aad dhahday laba kale iga gad mid iga reeb sidoo kale makaa yeelaayo ma ahna aada u qurux badan yahay iyagoo iswadanin oo saan u qurux badanna ma helaysa kuraastan dhibka ay qabaan inta saddexa kuu taal intana saddex waxaa waaye fadhi aada u weyn ma sheegine fadhiyaasha kale cariiriyu ku noqonayaa hadii aan meeshaas ooga soo tagno erigsalund waxaan imaa dukaan la dhahay mk mobler mk la dhahaa isagana isla Westeros ayuu ku yaalaa dadka badanaa erigsalund ayay yaqaaniin kan aada looma yaqaano aniga xataa aada uma aqoonin laakiin markii oo mataqaanaa aan alaabaha oo dukaamada alaabaha meelaha ku qorqortidoo kale wuu kusoo baxay laakiin dadka badanaa exactly dukaankan ahaan mu yaqaanaan meesha erigsalund uu qurux badnaay fadhiyadiisa iyo wixiisa kan aada wuxuu uga qurxoon yahay alaabaha oo sharaxadu ka qurxoon yahay fadhiga iyo waxaas erigsalunda shidan xoogaa laakiin kan ma liito asagana laakiin wuxuu aada ugu sii fiican yahay alaabahaas oo sharaxaadaha oo mataqaanaa oo guriga iyo ayuu kusii fiican yahay waayo dukaanba wax ayuu ku haystaa soo maahan waa kana kuraasti oo erigsalund ayagana taale camal waaye waa ujeedin mahano
asagana wuu hayaa wax uu hayni malaha dukaanka actual aad inuu ku qurxoon yihiin alaabihiisa. aniga like ku noqday like barkimahan aad u qurxoon yihiin, maybe inaan ka gato barkimahan aan mar kale ugu soo laabtay because waa ka helay barkimahan waa jeclahay qurux kale waaye qaara ka haystaa kuwa kalena hadii iska sii gato maybe waa laga yaabaa walaaleysa u jeedin yani dukaamada aniga wareeg u soo aaday maanta fahanti wareegtooy luq cadaa noqday inaan soo fiiriyo si degan ayaa u maaday sariir qurux badan oo haya iyo bahaladan kordhaga sariirta u jeedaa quruxday ka bateen maasha Allah, laakiin asagana lacagtiisa qaali ah qofkii rabo, laakiin akasa wuxuu gadayaa 1000 iyo jajab halka xabo bahaladaas, laakiin way qurxoon yihiin mastina ma ahan wax walba markaysaan qaal u yeena gadatid waqtiga waxa aad rabtid waa sugan kartaa, waqtiga la soo raqiisi ayaa iibsan kartaa, waxa in la raqiisi ina sugtid ceeb ma ahan, meesha aad qaali ku gadaadan bir raqiis la ka soo daba dhigi lahay. kuraastan oo halka dhinaca quruxda badan uu hayaa dukaanka aad u qurxoon yihiin. walaaleysa u jeedin wuxuu hayaa Mrs Gold ah, qofkii Mrs Gold raadinayo MK Mobler isku soo ogo insha Allah Mrs Gold kuraastan oo kala go'an oo kala asagana uu hayaa. dukaamadan amaanta kusoo wareegayo dukaamiyaasha dhan waxa ku dhahay waxa u maleysaa design-kiina iska soo shideen maasha Allah, si qurux iskaga soo habeeyeen. waayo ayaama dhexe waxaan yani ma haynin alaabta cadaani madowgi oo hore ku save gareysnada oo maleena kuwaas la u yaaleen, laakiin hadda maasha Allah 2021 way isla socodsiiyeen. kursigan oo kala hadda arag simple aad u qurux badan waaye, asaga dhanba kursiga dahabi waxa lagu soo xirxiray mara suuf iyo waxaas laga buuxinin. sabuuradaha idin sheegay waatana kan uu ka hayaa noocan oo flower-ga geedahaas oo shumacayaasha la saarto uu hayaa. dukaamada maanta inaan ku soo wareego walaalaheyn uga faa'iideeyo qofkii mataqaana abaay oo alaab raadinayo kala aan ugu talagalay. sariirashidan uu hayaa asagana sariirii meesha ka maqno walaalahay qaaliga aniga maanta waxa waaye this day was wareeg day inaan soo wareego wax soo fiiriyay la soo baxay. saa u jeedinba kursiyaashan uu hayaa aad u qurxoon yihiin arkaysiin maano maanta waa iska wareegay aniga waxaan dhahay waa soo wareega waa soo dukaan fiirsanaa fahmino hal isoo raaco intaasan u soo baxay anden maalin kale tan waan ku soo wareegi doonaa markaas maybe alaabta aan ka helay midka akalna ka gato. kursigan oo kale aad u qurux badan yahay inaba caadi ma ahan u jeedin qurux waaye qurux badan yahay kuraas sidan aniga waa ka helay ayaamahan aad u qurxoon yihiin saa u jeedin boos weyn way leeyihiin oo yani kursiyaasha waxa fiican inay base-ka ku fadhiisanaysa base fiican ku yihiin. hada kursiyaal aan ku soo arkay dukaanka aan ka imid Ericssondo kale aad u qurxoonaan 100% aan dhigi kara quruxdooda, laakiin barbalemkii qabeen wuxuu ahaay inoo oo la asanaayeen inay ahaayeen gaabkana maxaa ku sii darsaday booska oo lagu fadhiisanaayeen wuu yaraay. alaabihii hore iyo alaabaha shidan iska horkeenay. hada kursiyan oo kale kuraasta hore waay dada ilaa hadda kataan wuxuuna kala soo agdhigay alaabaha hadda cusub ayuu agdhigay because dukaankiisa asaga iska leh maahano. wuxuu kala hayaa sharaxaadyaashan aniga dukaamiyaasha maanta inaan ku soo wareego aadadkan idin soo duuduubo aan u soo labistay saa idin sheegabo alaabaan raadsanayaa laakiin alaabta raadsanayo weli yani exactly taas ma dhihin. dukaamada kuwa markaa ku soo wareego waxaa kaloo alaabtaas ka raadin doonaa internetka ka raadina kuwana ku soo wareega qiimaha isku soo barbardhiga waxaa soo sameynaya alaabihii inaa mataqaana dukaamada maadaama leef ka soo arkay internet-kan waa ka raadina meeshii raqiisan meeshii mataqaanaaye si fiican ay u fiican yihiin alaab gadidooda iyo waxooda ayaa si kala dooro doonaa ma fahanteen. laakiin koow waxaa la arkaa waa loo gambinaa waa la soo wareegaa ma fahanteen. aniga waxaa waaye awalka horeeto waxaan hal mar gadin jir laakiin hadda waa iska dhaafay waxa markaa arko waa ayaan dhana u sugaa qofkii oo rabo camal armaajooyinka TV-ga la dhexgelinayo oo weyn uu hayaa qofkii booskaas haysto muraayadahan oo kale uu hayaa fadhiga korkiisa ku dhigsan kartaa qolka jiifka dhexda meesha u baahan tahay kala ku dhigsan kartaa uu hayaa ayagoo design kale laakiin marka aan soo baxayay ayaan arkay soo gadaalna ugu laaban waayay soo laakiin qofkii rabo uu ka heli karaa muraayadahaas. marka waa kaasa maanta magaalada daan soo marsiiyo dukaamanka saas idinku soo duubay yaa iga fiican cidna wallahi ma sha Allah maanta wareega iskaga soo baxay inaa waxaan fiirsado si degan dukaaman ku soo arko kadib aan mataqaana aan keeno alaabtii mataqaana aan u baahnay soo qof walbana alaabta wuxuu u maleynayo commentiga ayuu soo qoray insha Allah waan isla socon doonaa fiidiyoyaasha dambe.